salaamullaahi calaykum akhyaarta nala socota soo dhowaada meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa 25 bisha Juulaay sanadka 2026 gobolka bariga dhexe jiha aad iyo aad u adag ayuu aaday marka la fiiriyo qaabka iyo dhaqdhaqaaqyada hadda ka taagan nimanka xoutiyiinta ahaa ee xalay al-Xudayda iyo deegaano kala duwan laga weeraray jawaab degdega ayay bixiyeen goobaha shidaalka ee Aramco ee wadanka Sacuudiga gaar ahaan gobolka Jizan ayaa aad loo garaacay sarkaal sare oo xuutiga u hadlana waxa uu leeyahay wali la isma gaarin oo faanole fari kama qodna dagaalka waa bilow dawladda Sacuudigana daandaansigan wixii ay ka gurato ayay leedahay jiha cusub ayaa bilaabatay gobolka bariga dhaxana waxa la leeyahay badda cas go'doominta waa sii soconaysa si gaar ah ayaanu eegi doonaa marinka Hormuz oo ah meesha Trump uu hadda dagaalka ugu adag kaga haya wadanka Iran waxa uu galayaa baa la leeyahay jawi cusub oo dagaal iyo waji aan horey loo malaysan karin Iran waxay ku eedeysaa Mareykanka inuu furay marin kale oo ku dhow marinka Hormuz kaas oo wixii ka dhacay ay leedahay iyana waa la arki doonaa Iran waxa ay bilowday in ay diyaarinayso baa la yiri bartilmaameedka weerar cusub oo la xiriira nidaamka Israel wixii laga aamusnaadaba markan Israa'iiliyiinta waa loo soo dhigtay oo cabsi weyn ayaa haysa ninkii Netanyahu ahaana waxa uu maalmahan daawanayay casharada loo dhigayo wadamadii Carabta laakiin marka waxa uu leeyahay talow sideen ku badbaadi karaa Mareykanka ma ku sii dhawaanaya weerar ballaaran oo ka dhana wadanka Iran qodob taxliili ah oo si gaar ah u taabanaya dagaalada bariga dhexe ayaan khiyaarta inala socotay ku eegi doonaa iyo weerar kale oo lala beegsaday goobo muhiim ah oo wadanka Sacuudiga ku yaala qodobadaas iyo kuwa kale oo kamid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee ka taagan gobolka bariga dhexe ayaan si gaar ah u lafaguri doonaa khiyaarta qiimaha iyo qaayaha leh ee nala socotay fadlan hilmaamina YouTube-ka inaad subscribe saartaan share gareysaan si macluumaadkan barnaamijka xiga aad qayb uga noqoto fadlan adigoo magacaaga ku bilaabaya waxaad tafaasiil ka bixisaa ama aad ka jawaabtaa weerarka lagu qaaday xarumaha shidaalka ee Sacuudiga ma waxa uu ka dhigan yahay naafayn dhaqaale oo dawladda Sacuudiga soo gaartay masal la oran karaa Sacuudiga dagaalkii muddo dheer loo qalqaalinayo in lagu jeedo hadda ayuu faraha la galay arrimahaasi jawaabtooda sidaad u aragto qaybta hoose inoogu soo qor marka barnaamijkan aad daawata wixii kaaga baxa ayaad hoos noogu qori kartaa adigoo ku bilaabaya magacaada iyo goobta aad joogto aad baad mahadsantahay in muddaaba waxa indhaha lagu hayay jawaabta kooxda xuutigu ay ka bixin karaan weerarkii xalay Mareykanka uu ku qaaday al-Xudayda oo ah magaalo ganacsi iyo sidoo kale magaalo dekad leh oo kamid ah ilaha dhaqaale ee xuutiyiintu ay gacanta ku hayaan hasaatee waxa la isku ogaa kooxda xuutiga in aanay gacmaha isi saaran doonin Cabdimalik al-Xuutina uu jawaab bixin doono ninkii Yaxya Saraac ahaana uu warbaahinta ka soo muuqan doono laakiin su'aalaha ugu weyn ee doodu ay ka taagnayd waxay ahayd nooca jawaabta xuutiyiintu ay qaadi karaan iyo meelaha la beegsan karayo laakiin durbaba waxa muuqatay ilaahay dhaqaalaha ee Sacuudiga saaka 10 adag in loo dhigay oo gantaale iyo diyaarado iswada oo xuutigu ay leeyihiin hobriska leeyahay haddaba weerarka ka dhacay Yambu iyo Jizan maxaa laga yaqaanaa talaabta xuutiyiintu ay bixiyaan sidee qaar kamid ah warbaahinta oo faaqidayaan waxa la leeyahay xiisada u dhaxaysa Yemen iyo Sacuudigu waa sii xoogaysatay Sabtidii kadib markii gantaalo laga soo riday Yemen lagu weeraray magaalooyinka Yambu iyo Jizan maalin kadib markii Sacuudiga uu sheegay in uu duqeeyo bartilmaameedyo military oo kooxda xuutigu ay ku leeyihiin gobolka al-Xudayda wararka ayaa sheegaya in xarun shidaal oo ay leedahay shirkadda Sacuudiga Aramco ay ahayd baa liri goobaha la beegsaday sawirro iyo muuqaalo la baahiyay
warbaahintana ka soo muuqda ayaa la arkayay tiirar madow oo cirka isku shareeray macnaheedu waxay tahay qiicayo uura sidii ushii u baxay meelo la beegsaday oo ilaa iyo 4 gaaraya oo cirka isku shareeray taas oo la xiriirtay magaalada Jeesaan kadib weerarka waxay ka dhigan tahay marka Sacuudigu in halkaasi uu waxyeello ka soo gaareen maadaama gantaalada goobihii loogu talagalay ay ku dhaceenna ay hadda mushkiladu ballaaratay weerarka ayaa yimid kadib markii isbahaysiga uu hogaamiyay Sacuudigu uu sheegay in uu duqeeyo saldhig military oo Xuutigu ay ku leeyihiin Xudayda iyo jasiiradda Kamraan sida lagu sheegay bartilmaameedyadu waxay ahaayeen goobo qatar ku ahaa maraakiibta ganacsiga ee badda waa sida Sacuudigu ay tilmaameen dhinaca kale Xuutiyiintu waxa ay ku dhawaaqayaan dagaalku in uu ka bedelan yahay sida Sacuudiga ay hadda sameynayaan oo waxa la leeyahay dagaalka waa bilow dowladda Xuutiga ee aan la aqoonsanayn ayaa sidaasi oranaysa hogaamiye sare gaar ahaan madaxa wafdiga wadaxaajoodka ee maamulka Sanca ee Xuutiga ninka la yiraahdo Maxamed Cabdisalaan ayaa si kulul u weeraray boqortooyada Sacuudiga isagoo ku eedeeyay in ay wado go'doominta Yemen isla markaana uu ku tilmaamay in ay la mid tahay Israa'iil oo hadda wixii ka dambeeyay Sacuudiga aan wax jaxan iyo naxariis loo sameyn doonin sidaas ayuu sargaalkii wadaxaajoodka iyo galkii wada hadalka u hayay kooxda Xuutiga uu saakay ka sheegay magaalada Sanca Cabdisalaam waxa uu sheegay in duqeynta lagu bartilmaameedsaday garoonka caalamiga ah ee Sanca ay cadeyn u tahay sida uu hadalka u dhigay in Sacuudiga wali diidan yahay garoon dib loo furo isla markaana uu doonayo in furitaanka uu ku xirnaan karo ogolaashiyo boqortooyada ah taas uu yiri waa bahdilaad dowladda Yemen Xuutigu aanay qaadan karin waxa uu sheegay in Sacuudiga dhinaca kale uu sheegay in uu difaacayo madax banaanida Yemen halka dhinaca kalena uu sii adkeynayo xayiraadda saaran garoomada iyo dekedaha wadankeena hogaamiyahan Xuutiga ayaa ku dhawaaqay eedayntan muddo 8 sano ah ka gadaal markii dagaal dheer uu socday isla markaana lagu guuldareystay dagaalka in hadda uu adeegsanayo baa la yiri xayiraad dhaqaale oo ay bilaabeenba Sacuudiga iyo kooxda uu taageersan yahay ee Carabtu in ay tallaabooyinkaasi qaadaan waxa uu sheegay in Sacuudiga naftiisa uu soo bedelay cadow oo Yemen leedahay isagoo ka digay haddii ay sii wadaan siyaasadda uu ku tilmaamay iska indhatirka xaqiiqada ay ka dhalan doonaan buu yiri cawaaqib culus oo saameyn doona amniga iyo dhaqaalaha boqortooyada waxa uu ku dhawaaqay in xayiraadda maraakiibta badda ay tahay buu yiri tallaabada ugu horeysay waxa uu ugu yeeray dagaalka lagu wajahayo go'doominta isagoo ku tilmaamay wadankiisa in aanu isdheebi doonin afayeenka isbahaysiga Carabta ninka lagu magacaabo Turki Al-Maliki ayaa waxa uu sheegay in howlgalka lagu bartilmaameedsaday goobo military oo la xiriira kooxda Xuutiga ee weerarka dhanka maraakiibta ganacsiga iyo kuwa caalamiga ah ee ku sugan badda ay yihiin xaqiiqo sax ah oo muhiim u ah in gobolkaasi xaaladiisa lagu dejin karo kooxda Xuutigana ay noqon karaan baalidi kuwa isbedelka dagaalka iyaga bilaabay sidaas daraadeed Sacuudiga aanu eegan doonin maraakiibtiisa dagaalka ee la gubayo haddaba nimankii Sacuudiga iyo Xuutiyiinta ahaa kooxdii Shiicada ee Yemen joogtay waa ishayaan waxaanay u muuqanaysaa markan Cabdimalik Al-Xuuti iyo Maxamed bin Salmaan in sheekadu ay noqon doonto ninkii raaya ayaa badda cas ka talin doona iyadoo maalmo ka hor la sheegay in dowladda Iran qubaro military oo ilaalada kacaanka ka tirsan hub iyo saanad ciidan ay geysay qaybo kamid ah wadanka Yemen gacantan ay u galeen kooxda Xuutiyiinta ayuu dagaalkan mar kale bilaabanaya marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz waji cusub ayuu galayaa marka la fiiriyo dagaalka maalmihii ugu dambeysay ka taagnaa gobolka Bariga Dhexe Trump waxa uu boodo oo dhacaba awoodiisa waa ay gaari leedahay marinkaasi inuu ka dhigo goob ammaan ah dhagahana uu ku dhufto dowladda Iran taas bedelkiisa isaga ayaaba ardaadiqada laga dhigay qaybo kamid ah
goobaha isaga uu joogo ee gobolka bariga dhexe waa Mareykanka halka marinka Hormusna ay noqotay meel Iran wixii ay doonaan ay ka sameeyaan. Shirkadaha caymiska maraakiibta waxay leeyihiin halkan Trump uu iskuma soo aadi karno adigoo markab galbinaya oo ciidamadaada cirka ay ka taageerayaan ayaa halkaasi lagu ololiyay marka yaa dabaalaho duurka loo dirayaa suuragalba maaha inta halkaasi dagaalku uu ku holcaya inaan galayno. waxaa muuqata baa la yiri in xiisada ku saabsan marinbiyoodka Hormuz ay u gudbayso marxalad cusub iyadoo dareenka caalamka uu si tartiib uga leexanayo iska horimaad military oo Iran isla markaana u wareegayo ilaalinta ganacsiga iyo maraakiibta caalamiga ah. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay yaraadeen weeraradii ka dhaci jiray marinbiyoodka isla markaana ay socdaan dadaallada diblomaasiyadeed oo wadamada gobolku ay sii wadaan si loo soo celiyo xasiloonida mid ka mid ah marinbiyoodyada ugu muhiimsan ee caalamka oo hadda sida hub nuclear oo kala ah ay u isticmaalayso dowladda Iran. sida uu ay sheegayaan diblomaasiyiin reer Yurub iyo waliba ila ka shaqeeya dhoofinta iyo waaritaanka xogahu waxay leeyihiin baaliri iyagoo uu xaganaya wargeyska caanka ah ee Axios. Mareykanka iyo boqortooyada Ingiriiska waxay qorsheynayaan in toddobaadka soo socda ay yeeshaan magaalada London shir heer sare ah oo dhinacyadan ay kaga arrinsan doonaan arrimaha marinkan. shirka ayaa lagu falanqeynayaa suurtagalnimada dhismaha isbahaysi caalami ah oo qaabilsan sugidda amniga maraakiibta iyo xorriyadda isu socodka maraakiibta marinbiyoodka Hormuz. halkan waxaa ku hoos qarsan dowladda Ingiriisku waxaa lagu jeedayaa dagaalka waxana ay markan hor istaagi doontaa dowladda Iran. halkan ayaad ka dhadhansan doontaa sida majalladu ay qorayso. ila wareejada waxay sheegayaan waqtiga rasmiga ah ee shirka iyo ujeedadiisu wali kama dambays looma go'aamin hase yeeshee wada hadalladu wali waa soconayaan. haddii qorshaha uu hirgalo waxa uu noqon karaa tallaabo cusub oo ay quwadaha reer galbeedku ku doonayaan inay ku ilaaliyaan ganacsiga caalamiga ah iyo socodka shidaalka iyadoo la adeegsanayo iskaashi caalami ah halkii xoogga la saari lahaa kaliya tallaabooyinka militariga sida ka muuqanaysa dagaalka. Iran iyadoo arrimahaasi ay taagan yihiin waa baraarugtay waxana ay Mareykanka leedahay marin kale ayaa doonaysaa inaad furto laakiin waxaad ka hesha adiga ayaa iska leh. wasiirka amuraha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa ka soo muuqday warbaahinta isagoo aad u doodaya isla markaana dowladda Mareykanka dhaleecayn oo dhan dusha ka saaraya. wasiirka amuraha dibadda Iran Abbas Araghchi waxa uu ku eedeeyay baaliri Mareykanka inuu qaaday tallaabooyin ka hor imaanaya heshiiska is-afgaradka ah ee ku saabsan marinka Hormuz isagoo sheegay in Washington ay furtay marin cusub oo aan waafaqsanayn qodobadii lagu heshiiyay. Araghchi ayaa sheegay in qodobka shanaad ee heshiiska is-afgaradka uu si cad u sheegayay in Iran ay tahay dhinaca go'aaminaya baaliri habraaca iyo nidaamka maraakiibtu ay uga gudbayaan halkaasi. waxa uu sheegay in tallaabada Mareykanka ee lagu furay marin kale aysan waafaqsanayn heshiiska halka Washington ay ahayd in ay la tashato Tehran ka hor inta aanay tallaabadan qaadin. waxaa sidoo kale la xusay kadib markii ay dhaceen iska horimaadyo gudaha Hormuz labada dhinac waxa intii lagu jiray wada hadallada ka dhacay Switzerland ay ku heshiiyeen samaynta qad isgaarsiin oo toos ah oo dhinacyadu ay ku wada xaajoodaan. markan aan arrinta Hormuz halkaasi ku xiro xiisada aad ayay u sii adkaanaysaa. nimanka Israa'iil waxay yiraahdaan keebla yoorar ayaan nahay dagaalka bariga dhexe inaga Iran ayaa nugu jeedi karaysa. nimanka Iran waxa la leeyahay waxa suuragal ah saacadaha soo socda duqeyn aan la arag oo aan la maqal in nimankii lagu qaadayo la yiraahdo aan Israa'iil. ninkii Netanyahu wadnaha ayuu farta ku hayaa maanta. sidaasi waxaa qoraya qaybta wararka ee Al Jazeera ee dhinaca digitalka ee Al Jazeera net la yiraahdo. haddaba ila amni oo Iiraani ah ayaa u sheegay Al Jazeera net in ay diyaarisay baaliri Iran liis cusub oo bartilmaameedyo ah oo ku yaala gudaha Israa'iil. waxaana la sheegay in la doonayo in Israa'iil si toos ah uga qayb gasho dagaal ka dhan ah wadanka Iran.
sida ay uu sheegay ilahaasi bartilmaameedyada cusub waxaa la xusay in ay noqon doonaan goobo ay adag tahay in dib loo dayactiro ama dib loo dhiso muddo sanado ah hase yeeshee ma uusan shaacin nooca ay yihiin goobaha ay ku yaalaan ama in ay xarumo military iyo kuwo dhaqaale iyo kaabayaal kala duwan oo muhiima la garaaci doono